barasaabkii ugu horeeyay gobolka Gabiley ee xilligii xukuumadii Daahir Riyaale Kaahin isla markaana magac iyo maamus ku lahaa guud ahaan deegaanka gobolka Gabiley oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta ku soo guriyo noqday magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley iyadoo socdaalkiisa maanta ku helinayeen wasiirka wasaaradda warshadaha Somaliland safiirka Somaliland u fadhiya dalka Sweden agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada iyo afayeenka madaxweynaha Somaliland iyo waliba madax kale waxaana soo dhaweynta wafdigan uu horkacayay barasaabkii hore gobolka Gabiley Maxamed Axmed Aw Cabdi Xabiib lagaga hortagay kantaroorka bari ee magaalada Gabiley kuwaasi oo ay kaga hortageen maamulka heer gobol iyo heer degmo maamulka xisbiga kulmiye iyo boqolaal kamida dadweynaha reer Gabiley halkaasi oo loo goglay rooga cas ee maamusta la saaxiibka ah halkaasi oo ay ka soo galbiyeen ilaa ay ku soo afmeereen socdaalkooga hoolka Taj Palace ee xisbiga kulmiye ugu qabanayay munaasabada soo dhaweynta barasaabkii hore ee gobolka Gabiley oo si rasmi ah ugu biiray xisbiga kulmiye munaasabadani oo si heersare loo soo agaasimay ayaa lagu iba furay heesta calanka qaranka Somaliland kadib waxa halkaasi khudbado soo dhaweyn iyo maamus iyo mahad celin ka jeediyay mas'uuliyiinta la socotay iyo kuwii soo dhaweeyayba iyo waliba oday dhaqameedka kamid ah reer Gabiley xafladda qiimaha badan ee aan maanta halka u fadhino aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa xariirigeenii hore barasaabkii hore ee gobolka Gabiley mudane Xabiib oo maanta aynu xafladiisa halkan u fadhino kuna soo biiray xisbiga kulmiye inuu wax badan waa haliyey loo baranaa waa haliyey wax badan inagu soo kordhinaya waa haliyey kaalinta uu kaga aadaya xisbiga kulmiye iyo halka uu kaga jiri doono la garanayo iyo wuxuu soo kordhin doono waxaan leeyahay mudane waan ku tabaynay waan ku sugaynay ku soo dhawow xisbiga kulmiye ku soo dhawow munaasabadeenu way noo furaan doonaan ilaahaynankii inta rabadaanta way naga xidhaayeen runtii oo rabadaanta waynu iska cibaadaysanaynay xisbiga kulmiye halka uu ku socday heysigiisa way noognahay halkuu maanta marayo waxaan halka salaan uga dirayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta ku hagaya siyaasadda xisbiga kulmiye inuu horumar gaarsiiyo oo uu beesha gaarsiiyo xisbiga kulmiye ummadiisa loo shaqeeyo waxaan kaga baxayaa dhammaantiin waa salaamatii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu محمد حبيب أحمد أو عبد حسن أنا أسبوع هنا نركب إهنا وحكى اليوم سلام يا مسؤولية أجازمياشة معمول كهير قبل سمكوا بكره هير تقولوا أو يمكن عالي قناع إيشوا بقبل الفتن ضمانه ما سلام يا قباشة وضياشة صلابيتها dhammaan salaam iyo waxaan ku soo dhaweynaa Maxamed Xabiib waxaan ku leenahay ku soo dhawow xisbiga kulmiye xisbigii daryeelka xisbigii daacadda xisbigii cadaaladda wilka waan ku leenahay si sharaf bay tahay maanta inaan joogo magaaladeydii soo dhaweynayno gacmo furan soo dhaweynayno geesi loo baahnaa nin aad u adag oo wax qabadkiisu badan yahay oo aanu dalkan gudihiisa oo kaliya ku koobnayn mudane Xabiib waa shakhsi ka xusan oo laga yaqaano Scandinavia intaas aan idinku daraya salaamta
waxaan u soo wareejin doonaa oo aad iyo aad halkan uga salaamaya madaxda qaranka ee wasiirada leh gudoomiyayaasha leh aad baan idin salaamaya idin kala qaadqaadi maayo dadkoo badan awgood waan soo gaabinayaa waxa bishaara waxaan ka dirayaa maanta anuu halkan fariin toos aan ugu tiraayo xisbiyada dalka ee ku loolamaya madaxtinimada soo socota haddii ilaahay dhaho waxaan leeyahay gobolka Gabiley yaan lagu habsaami ayaa la isu dayay dhaqaalana kaaga lumin Gabiley waa kulmiye hore waxaa u dhacay xisbiyada tartanka ku jira siyaasad burbur baa ku dhacay waxaan uga digaynaa inuu dhaqaalo burbur ugu darsado way khasaaraan maanta waxaa leh walaalkan xabiib barasaabkii hore gobolka Gabiley barasaabada ayaa namar labaad leeyahay oo inantii baan hadalkeedii sii xoojinayaa waxaan u faraxsanahay waxaan soo dhaweynaynaa kolka aan arab akhida iyo xaruurka arko waxaan ku saddexeeyaa saaxiibkay xabiib waxaan leeyahay waa calaamadii gobolka waayo gobolka halkii koowaad barasaabkii koowaad isaga ah waxaan xasuustaa xilliyadii hore een isla jaan qaadi jirnay waxaan isleeyahay haddii dadkii adsaa isku taqaaneen ee wada dul jirteen meesha yimaadaan waxaad meesha yara xumaata waxaad isla garan doontaan meesha ay laga hagaajinayo isla waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay dhinaca wada jeedka reer Gabiley siduu faad kaamil ciise inoogu ambaliyeeyey iyo siduu isaguna inoogu soo biiray iyo wax jooggeenu inuu wax badan tari doono intaynoo keliya maaha waxaan leenahay xisbiga kulmiye ha guulaysto qof inaga midihi waxa weeyaan dhammaanteed waxa uu qabanayo isina wuu naga turjumayaa waxaan leenahay saa maanta badin maayo aad baan faraxsanahay in isku yana baahda laga yaabaa waxaan filayaa gudoomiye jaamacadeed inta badan waa ka mamnuuc xafladaha siyaasadda laakiinse anigu siyaasad ahaan waa saaxiibkay xabiib yaa laygu yeedhan malay waxaana la yidhi waxaa la weydiiyaa qofka macnihii waxaan u soo joogay sawlo tiraada markaa qofka waxaan filayaa maadaama saaxiibkay xabiib markaanu magaaladan aanu gobolka imanaynay midkayna lacag inu sidan waxaan tii aanu sidanoo jibadaan u sidanay oonu nidhi reegin wax ku qabanna may jirin laakiinse wixii idinku ad gacmihiinna ku jiray jibadihiinna ayaan wax ku qabanay waxaan xusuustaa inkastoo malaha qofku markuu koo joogo dee laakiinse taariikhda laga sheekeeya way fiican tahay maalintii ugu horreysay ee xabiib khudbadda aanu qoraynay maalintii ugu horreysay la magacaabay liiskii xabiib uu qoray ayaa rag badan oo siyaasiyiin waxay yidhahdeen ka saar liiskaasoo waxba reer Gabiley waxba qabad macnihii waxba haddaad ku ballan qaado waad khashifaysaa baa lagu yidhi xabiib iyo anagu waan ku adkaysanay waxqabadka waxyaabahan aad uga xusuusta waxaa ka mid ah macnihii aan aad u jecelahay inaan kolley magacaabo waxaa ka mid ahaa biyaha magaalada waxaa kaloo ka mid ahaa iyaduna cisbitaalkii Gabiley dhismihiisa oo guddidii waxaa iskaashaday dowladdii Somaliland ee waqtigaa jirtay iyo qurba joogii labadaba xayl active ka ahaa dhagax dhigi jaamacadda waxaan markaa jecelahay saaxiibkay waxaanu galaynaa oo rarka u nimid oo waxqabad weeyi ummadda reer Gabileyna aanu san u aqaano oo dad beeraleya aqoon leh waxqabadkana qiimeeya wax kale oo maanta xabiib ku soo dhaweynaa ma jiro waa in yar oo waxqabadkiisii ka mid ah oo aynu leenahay aad baad mahadsan tahay kulli anigu saaxiibkay waan jecelahay inuu ku soo noqdo saaxadda siyaasadda anigoo dareemaya inuu gobolka iyo waddankaba wax ku soo kordhin karo aad baanu soo dhaweynaynaa malahan waxaan isleeyahay waxoogaa yar uunbaa mudnaa inaad aduu ka hadasho oo waqtigii xabiib saaxiibkay la magacaabay liyadii siyaasadeed ee uu gobolka la kowsaday markii uu soo maray
ayuuma waxoogaa yar doona inaan ka tibaaxo iyo carqaladihii uu maareeyey ee adkaa ayo waxaan isleeyahay malaa inta halkan fadhido aad ka mid tahay aasudaas udhawade fursad laakiin walaa waxaan isleeyahay dadka halkan fadhiya waxaad ka mid tahay dadkii ugu badnaa iyagoo kala afgaar ah oo laba xusbi kala taageeraya ee aad gobolka isugu timaadeen xabiib ee aad isu qabsateen ayaad ka mid tahay marka xabiib waxay ka mid ahayd xilligaasi xilli uu ahaa curdin gobolku curdin ahaa siyaasad ahaan curdin ahaa oo ay ka dhacday gobolka arrimo siyaasadeed oo waliba duufaano siyaasadeed xoog badan xabiib wuxuu taariikhda ku galay sida wanaagsan ee uu maareeyey isagoo oo aan dadkii uu ka soo jeedayna ka eedgelin xukuumaddii uu matalayna ka eedgelin waa ninka kaarkaa qaatay horta xabiib isagoo oo maayara usoo abaabulay koox reer gabiley ah oo kulmiyo taageeraysa oo ka hor timid xabiib wuxuu horta loo bixiysay kooxdiisa kooxda sharka loo bixiyey markaa markanu gabiley soo galla odhan jira kooxdii sharkaa soo gashay laakiin xabiib wuxuu ahaa ninka qoraytu noo yeedhay nala fadhiistay in waryaadaheen waxna waynu wadanayna waxna waynu kala leenahay siyaasaddan iyaynu ku culloobin idinku hawshiina wixii aad xoog tihiin wada wixii aanu aan xaq idinku leeyahay u ixtiraama igana daaya dibidaabiya badan halkaasaanu ka aqbalay xabiib oo nukun walaa ninkan waagiisa oo ka shaqeyn waxa kale oo xabiib aad ugu suntan yahay inkastoo jecel waa sheekeeyo dacdooyinkii foosha xumaa ee ka dhacay waktigaa gobolka ee ka mid ahayd arrintii galbeeda ka dhacday sidii uu u maareeyey oo u maamulay xabiib taariikh gacan ku galay xabiib waxaan leeyahay xabiib oo aanu waqtigaa haddana saaxiib unan nahay marka horena markaanaanu kala afgaar duwanayn waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay maanta oo farxad weynii ah in xabiib oo ahaa ninka noocaas ah ee garabkaas ahaa ee awooddaas lahaa uu maanta aanu isku afgaar noqono aanu isku xusbi noqonno oonu isku aragti noqonno waxay u tahay kulmiye guul weyn bay u tahay waanan hubaa xabiib waa nin ku wanaagsan arrimaha abaabulka iyo frontieriska mutadacnimada oo waxaan xasuustaa isagoo waktigaa xataa badha saab hortiin marku intaanu badha saabka ahayn horumarka gobolka inuu horu maro ama gobolka gabile horu maro abaabulka inta guddi ee uu soo abaabulay ama uu lahaa curinteeda kama sheekayn kara iminka guddiyo fara badan oo horumarinta gabile qaar aanay shaqayn oo aynay shaqaynin qaar shaqeeyeen ayuu haybahaa dhekadeeda oo fikirkeeda lahaa waxaan leeyahay xabiib mar hadduu maantana uu omboor noqday uu mar labaad ku soo noqday gobolkii iyo dalkii siyaasaddiina ku soo laabtay horta waan ku soo dhaweynaa xusba kulmiye gacmo furan baan ku soo dhaweynaa waxaan mar saddexaad u mahadnaqayaa walaalkay master maxamed xabiib ahna barsaabkii gobolka gabiley ahna arrimo badan oo soo qabtay runtii waa ay farxad maanta aniga laftayda inaan kala soo qayb galo xafladan uu maanta xisbiga kulmiye ugu biirayo master xabiib sababtu waxay tahay xabiib iyo anigu isku jiil baanu ahay shaqadani waanu wada bilownay aniga xilka aan maanta hayo iyo xilkiisii barasaabnimo isku waqti baanu hayno rag ku wada cusub ayaanu hayno duufaanka axmed sheeri baana wada helay maaraynta ku fiicnaa iyo qaabkii uu noola dabaashay waqtiga aanu ku cusbayn hannaanka hogaamineed ee gobolka aanu ku cusbayn waa nin nala dabaashay oo si weyn noola dabaashay master xabiib waxaa lagu xasuusan karaa horumarka uu gobolka ka sameeyey
muddadii yareed oo uu joogay oo dhinacyo badan aad ka arki kartaan inta maanta taagan badideeda ee gobol ahaan astaanta u ah waa intii uu xabiib sameeyey waxaan maanta ugu mahadnaqayaa master xabiib waxaa kaloo maanta ugu mahadnaqayaa master xabiib haddii fikirkiisa caafimaadka qabaa uu gartay in hoggaanka dalku u baahan yahay inuu mar labaad xisbiga kulmiyo ku soo noqdo oo muuse biixi cabdi dalka hoggaamiyo inuu fikirkiisa ku gartayna saaxiibka waan uga mahadnaqaya garashada maanta xafladan aynu joogno waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan waxaan ku soo dhawaynaynaa sooma dhawaynayna wuxuu joogaa magaaladiisii iyo waddankiisii aan uga hor nimid soo dhawayn maaha waayo ninka meel kale ka yimaada ama aan gobolkiisa iyo degmadiisa imanay baan soo dhaweyn soo dhawayn maaha taniya waa ka hor imaanti waa ka hor nimido waa gobolkii uu madaxda ka ahaa ayuu yimid xabiib maxamed xabiib run ahaantii runta marka laga hadlo waa haliyey somaliland marka ugu horeysa waa haliyey somaliland marka labaadna waa haliyey ka dhashay gobolka gabil waxa weeyaan somaliland oo dhan baa ku faanta maaha innagoo keliya maxamed xabiib waxyaabaha laga xusuusto waxaa kamida sidii raggii ugu horreeyba sheegeen inuu ahaa haliyeygii ugu horreeyey ee qurbaha isagoo jooga oo weli waddankaba iman u halgami jiray sidii ay gebiday u noqon lahayd gobol isagoo dibadda jooga ayuu halgankaa bilaabay wuuna ku guulaystay oo markuu halkan yimid wuxuu noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee gobolka gebile maxamed xabiib waxaynu ku xusuusannaa hawshii uu ka qabtay jaamacadda waxaynu ku xusuusannaa caafimaadka wixii uu ka qabtay baa la ogayay maxamed xabiib annagu dad saaxiibaan waanan wada shaqayn jirnay waxaan ku xusuustaa arrinkii biyaha degmada gebile biyogelinteedii wuxuu ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee ka qayb qaatay bu waxa kaloo la ilaawi karin oo xabiib lagu xusuustaa wuxuu ahaa ninkii ka shaqeeyey ee mideeyey labada gobol ee dariska ah shaqaaqooyinkii ka dhex dhacay ninkii mideeyey ee isu soo dhaweeyey waa gobolka gebile iyo awdar ninkii ka shaqeeyey waa walaaltinimada aanu ka wada shaqaynay ee isku keenay ee mideeyey waa maantana mar hadduu xabiib soo noqday oo inoo yimid waxaan rajaynaynaa inuu halkaa ka sii bilaabo waxyaabihii horumarka ee wada gaar ahaan midayntii iyo walaalayntii labada gobol ee dariska ah waxaan jecelahay maxamed inuu halkii ka bilaabo annaguna aanu diyaar u nahay inaan ka wada shaqayno oo aanu la shaqayno aanu diyaar u nahay waxaan leeyahay xabiib maxamed xabiib sidii uu sheegay wakiilka xisbiga kulmiye dalka sweden maanta kumuu soo biirin xisbiga awalba niyadu inagala socdo inagala shaqaynayay waayo maxamed xabiib ma aha nin bulshadiisa ka baxa bulshadii gebiday meel bay ku shubatay soo soo maaha iyo meel badan bay iskugu tageen halkeen iskugu tagnay xisbigii kulmiye iyo maxamed xabiib nin ummaddii uu horseeday oo horkacayay ka leexan maaye niyadu inagala socday horena wuu inoogu soo biiray maantana xafladii baanu qabanayna waa xafladiisii hore buu inoola shaqeynoo niyadu inagala socday waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba maxamed xabiib waxaan leeyahay ummaddaadii aad hogaaminaysay eed guddoomiyaha u ahayd eed horseedka u ahayd halkii bay joogtay imagana calankaagii u hor qaado oo horkac baan ku leenahay oo horseed ka noqo annaguna haddaan nahay dhuqaashii iyo madax dhaqmeedkii gobolka gebile diyaar baanu kuu nahay inaanu kula shaqayno oo aanu kaala shaqayno howlaha haddii ay tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadka haddii ay tahay horumarka gobolka gebile aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa waxaa kaloon halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa safiirka dhallinyarada ee isna waxqabadkiisa aan halkan laga sheegi karay ee isbina wuxuu ka qabtay aad ogtihiin oo isna maanta dadkii deegaanka gebile oo inala fadhiya isna waxaan leenahay aad
iyo aad baan kugu hambalyeynanaa waxqabadka jamhuuriyadda somalilan aduu qabatay adoo qurbaha jooga markaad halkan timaadana waxqabadkaaga waanu ognahay dhammaantoodba waan soo dhawaynaynaa dadka maanta ka soo qayb galay shacabka reer gabileyna waxaan leenahay waqtigii wuu inoogu soo dhow yahay waxaan doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto sababna haddii aan la idhaahdo waxaa ka bilaabmaya gobolka gabiley degmada gabiley iyo gobolka maroodijeex waxaa ka bilaabmaya qaadashadii kaadharkii codbixinta maanta xisbigii kulmiye ayay magaalada gabiley tahay waxay noo dhiman ee laynaga doonayaa waxa weeye inaan kaadharhkeennii aan ku soo saari lahayn xisbiga kulmiye inaynu qaadanno taasay noo dhiman kaadharka markaan qaadannona waxay noo hadhay keliya inaan ku hubsanno oo aan sanduuqii ku hubsanno sidaasuu xisbigeenni ku soo baxay diyaar mawtiin maanta waxaynu soo dhawaynaynaa badhasaabkii inoogu horreeyey ee laynoo soo magacaabo innagoon gobol ahayn haddana badhasaab laynoo keeno waa ninkii dhaqaajiyey ee gaadhsiiyeenka maanta gobolkani uu taagan yahay waxaa ku biiray waxa weeye waa hadal baa ku soo biiray intii dambe laakiin wax horumaroo ka dambeeyey ma jiro wuxuu ina tusay waddada shaqada wuxuu ina tusay waddada horumarka wuxuu ina tusay waddada dowladnimada wuxuu ina tusay waddada wadaniyadda intaasoo dhan buu macallin noogu lahaa ha yeeshee maynaan raacin way hakatay oo way leexatay oo intaa yaree degmada iyo dowladda hoose mooyaane wax gobol dhaqaajiyoo dambe inama soo marin halkaasuu ina ka baqtay gobolkii la sheegayey iyo hanweynadii aanu hanweynayn iyo xagkii aanu qaadanay iyo soo dhowayntii gobolaan sugayna intaba maantana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in gobolkeenni hore u maro inuu dhaqaaqo in halkan laga doonayo gobolnimo uu gaadho in ilaahay dowladda inoo dhalanaysa kala siiyo dowladdii hore waxba inoomay qaban runtaa wanaagsane waxba inoomay dhaqaajin inteena gobolkana waxaa la siiyey dowladdii udub oo ka caranaysay kulmiye laakiin kulmiye waa runta aan isu sheegno shacabku baanu garaacaynaa maanta waxaynu hayaan weydiinaynaa maanta wuxuu noo soo wadaa aan ka wada hadlaynaa laakiin waxba hore nooma qaban muusabixina waxaan leenahay ka leexo waddadii hore kulmiye oo gobolkaa waxaad u qabanayso aydhiinka dhowgii baan leenahay taas maanta doonaynaa oonu kulmiye ka doonaynaa laakiin wixii hore waayaynaan ismacaashiinine shidimada yaree dowladdeenna hoose ka soo baxay waddooyinka laynoogu sameeyey ayaynu ku muuqanaaye maxaa laynoo qabtay kale waxba kale laynooma qabo waxa weeye kulmiyow maantaanu kaa suganaa waxaad noo qabanaysay hoo iyo hoo codka iyo waxaan isqaabsananaa wax qabadka iskanaysa halkaasaanu maanta doonaynaa ha sheego ma cadna dowladda waa dowladdii aan doorannay oo macaayayno laakiin dhaliil baanu ka sheeganayna runta ayaa wanaagsan aad iyo aad baanu dhaliil u sheeganayna laakiin dhaliisha waxaanu leenahay dowladda cusub ee dambe iyo tan dhammaadkeeda waa inaanu ka baxnaa oo kulmiya gacanta noo laalaadiyaa waxqabadkiisa na tusaa wuxuu gobolkaa u qabanayo hela tareynta wadda innaguna waxaan leenahay haddaba jalaabinaan leenahay innaguna aan dowladda kusii ku fadhiisino waxay inoo qabanaysana inoo gacanta ishaysanaa aan halkaa ku gabagabayno aad iyo aad baad umahadsantihiin ku soo dhawow xabiib ujeeddada aynu maanta xafladdan iyo farxaddan aynu isugu nimi waxa weeye soo dhowaynta aynu gacmo furan oo kalgacal iyo jacayl waddaniyeed ku jiro aynu ku soo dhowaynayno guddoomiyihii horreeyey ee gobolka gabiley maxamed axmed oo cabdi xabiib waxaynu ku soo dhowaynaynaa innagoo bulshadii gabileye oo isu duuban kubiiritaanka uu ku soo biiray xisbiga kulmiye hadduu qurbaanka ka soo biiray inuu xafladdii u horreeyey oo gobolka isu tusayay somalilanna inuu xisbiga ku soo biiray uu gobolkiisii ku qabtana waan uga mahadcelinaynaa waxaanu ku leenahay soo dhowow waxaan mar labaad ii soo dhoweynaa gobolkiisii gabiley isaga iyo wafdiga la socdaba runtii sidii hore loo dhawaajiyey oo looga hadlay wuxuu baan sheegaynaa maanta inuu tiiraad ku soo biiray xisbiga kulmiye
iyo muuse inuu codayno wax kale inoo hadhay intaas aynu hadhay aad iyo aad baan soo dhaweynaa farxad iyo qiimo weyn bay inoo tahay runtii waxaan hoosta ka xaqiiqaya waxaa 8 bisha inoo bilaabaya kaan qaadashadii waxaan aad iyo aad isugu dardaaranaa in kaan qaadashada aynu ku dadaalno gudaya dibadda oo qof kastaaba iskii uga howlgalo hawsha kaan qaadashada aynu dareen gaar ah siino runtii xisbiga kulmiye iyo xukuumadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gobol ahaan runtii waxaan jeclaa odayaasha inaan ka daba hadalno ma jecelin laakiin wixii caadifada keentada waa laga jawaabayay xaqiiqdu isma qariso waxa weeye xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu gobolka gabiley waxay ka qabteen hore looga taasina beelma mudane xabiib wuxuu ahaa ijiinkii dhaqaajiye horumarka gobolka shay walba waxba dhaqaajiya markhaati baanu uga nahay ijiinkii dhaqaajiye buu ahaa waddadii u horraysay ee laamiye gebila la dhigo waqtiguu joogay baa la dhigay markii jaamacadda la furay waqtiguu joogay bay ceelasha biyaha markii la sameeyey waqtiguu joogay bay dhakhtarka markii la furay waqtiguu joogay bay intaasiba taariikhday ugu jirtaa isaga iyo golihii deegaankay la shaqaynayeen isaga jameecad la shaqeeyey aadan baa la shaqeeyey way ugu faanay intii wixii ka dambeeyey horumar ballaadhan baa gobolka ka hirgalay haddii la isbarbardhigo dowladdii udub iyo tankulmiyana udub waxay noo qabatay da waynu ogni ceelasha abaal baynu ugu haynaa jaamacadda waxay ku sabargaraysaa abaal baynu ugu haynaa dhakhtarka hoolkii marwadii ay noo dhistay waynu ugu haynaa abaal laakiin kulmiya lama barbardhigi karo xaqiiqda markaynu isku sheegno kulmimaynu barbardhigi karnaa waddada wajaale iyo kalabaydh waddada wajaale iyo kalabaydh oo qura wax loo dhigaa ma jiro waddada dila iyo kalabaydh wax loo dhigaa ma jiro cisbitaalka wajaale wax loo dhigaa ma jiro cisbitaalka kalabaydh wax loo dhigaa ma jiro biyaha wajaale laga sameeyey wax loo dhigaa ma jiro 9 wasaaradood ee gebile laga dhisay kulmiyaa dhisay kulmiye waxa uu noo qabtay waxaynu ugu codaynayna wey waxaynu maanta caladka ku wada haysanaa oo waxaynu ka aragnay aynu doonano muuse biixina inuu intii sii libilaabo ceelasha laftooda haddii waqtigii udub 3 ceel motor laga sameeyey gobolka 5 ceel bay dowladda kulmiye ka dhistay motor bay ka dhistay geedabeeray ka samaysay arabsiyaa biyo la geliyey waxaasoo dhan waa wax dowladda kulmiye noo samaysay intii baynu ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha waan ugu mahadcelinaynaa muusan waxaan leenahay intaa inaad sii libilaabto ayaanu kaa rajeynaa soo intaaba markhaati kama yidhi madaxweynaha waan u ducaynaynaa arrinta gobolnimada sharci dejinta oo baarlamaanka ku harsuqa ay ugu dhiman intaasina da wadan bay dul taabay halka ay gobolka gabiley uu ka taagan yahay xisbiga kulmiye bay taasi noo muujinaysaa maalin kula muu soo hadal qaadin muu soo dhigin arrintaa ayaa dowladda lagu soo xoqan insha allahu tacaala taasina way dhammaan doontaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha sharafta milgaha leh ee dadkiina qiimaha leh way idinku kala calaamaysan baan idinka mahadcelinayna u soo dhaweysay barasaabkiinii hore xabiib oo ay muujinayso iyo sida xukuumaddiina iyo dowladdiina iyo mas-uuliyiintiina aad u barbartaagantihiin halka maanta waxaynu u fadhinaa waa inaynu soo dhaweyno walaalkeen xabiib barasaabkii ugu horreeyey ee gobolka gabiley waxaan filayaa xabiib in badan baa laga hadlay xabiib anigu waxaan ka hadlay 16 bishii 8aad 2010 maalintii aanu xilka la wareegaynay aniga iyo rashiid kumarsha gobolka maalintii aanu la wareegaynay oo aanu kala wareegaynay cabdirasaaq oo sii haye ahaa xabiibna markaa uu dibadda ku maqnaa horta maalintaasaan anigu xabiib ka hadlay xilkii aanu maalintaa qabanaynayna waan ka warwarsanay goobtii baana ka sheegay waana ka maahmaahay weliba wax kala ogamaan warwarsanayn waxaan uga warwarsanaa imikana waan ku celinayaaye kelmaddaa maalintaa idhi haddii meel uu nin wanaagsani kaaga horreeyo haddii xil uu nin wanaagsani kaaga horreeyo oo dadku jecel yahay kaaga horreeyo
si kastood wanaagsan yahay wax kastood qabato muuqan maayo Soma sababtaas bay ahayd taariikhka maalinta ugu horeysa maanta dhammaantii waxaa wada marteen xabiibinu ahaa halyeygii gobolkan dhidibada u taagay Soma waxaan leenahay reer Gabiley xabiib haddii aynu jeclayn وينا صنع صباح ولما ما أنت واعي هذا هو باهنها أي نوي أنت وين معنا يعني جسد كيس وين معنا يوم نرجع هديه ودمت شوينا قبل كم أسر شتيني هديه ويبقى وكشتيني حبيب واحد ولا نحن ما أنت كسرنا قبل كاغي حسبي كلمية دور الشلة كليو ورب العمية لما قام يلعب بشيء كيف تلاقيه مدفعاني أنا أقول لك ما أنت اللي هو يقبل بالوركينا شيء بعنا قبا أنت كلمة وأنت تبينه قبل لماذا أنا عبد الرحمن إلا حتى تمد عليه مفرديا وما ترى على ذيك الدنيا هو وليس عسيرين دي تاي تاسم كورنيا حالي شيء هالكل ورتا ديوان قلتي وين بالعمسة كان هذا شديد وهي بالعمسة سنة بش وحنا يهي كل شيء كدور شوي أنت وعي قلتي لو نحقق وعي قلنا غفرا ما وصلت رفق الساعة وقبل كبير الشوقة دقمة هديت هاي هديت ولدت هاي شخص ولو هل كان وعي قليه هرتكتها كان على شدي إن يسكت شنو دكتور وعي قلنا هذا ولا كان كذا قاطع تصير وعي نوبلا وقدام بيتي حالي وحن شاشدها ويسكع كذا وضي وسيد كاني هراء قبل كان كسوق شيء أبي بديريان ولا وحمسي صعدا وطني بالبان ما يودي شيء وتوقع معه لكن بالبان دي شيء الله هو حريستني كان صحيح وهيك محمد حاشد مع قاضيه ما هو يفكر شغلتي صدق نبو كما معي صدق لي وانا ما كنت صدق نبو انا ما كنت ايو كما معي اسكو بتجي اسمع ما هينو سيفي عبا هو ذا قيل جر دبدا ترى لبدي كل شنتي مركي baarlamaanka lagu dhawaaqay ayana u jaad iska taag kaadiyo u mahma wuxuu saddex afmood haddaad aragtaan saddex xaalo haddaad aragtaan weligin ha gumaysanina guji allahum xaystabaatu naga hoosay wuxuu ninka maxamed xaash ilmi la yidhaa waa wasiirkeenii hore ee maaliyad ismigii dowladda kulmiye markaa xilligaa uu mahmaahayo udba yaa jirtay maxamed xaashino wasiirka ganacsiga ee uu noqday dowladdii udub abiib diiryano oo markaa kulmiye soo galay oo udub ka yimid
نحن الميوه النبي على عسل وعلي صدح ما الله ركتان منها رويسين ولي وعلي هطار ركتان بولي محمد حاش هو محافظة محمد حاش هو محافظة هطار ركتان ولي منها رويسين ونقو سيعاوي انت الله يقوم معارض هطار ركتان بولي عبيد ديريانه هو معارضة ولينا كويسين حق انت الله هو محافظ ابي العمو وطني حتى لما حسيس سعودي قلت انت الله هو محافظ لكن ما لك الدكتور سمو دولة الدكتور مصبحي من عايز مقشان على عسى شات كداي شخصيا كان أنا جوا أفيك مدحوينا قرنك وضي حسبك قدومية وضي حسبك هجاميها جودة قرنكينا أنا أفكيسي كهاليا وحنا محمد حبيب كسودو حسبي من نملا عدالة يهرمرك كلنا كمان فرق كسودو كل مية رناتي وحسبي بلارن وحسبي اسكون تشري سلمكانا عن لهين قدوب يعلو الكسيك سياسات وحسبي فرن لمان ومدى جمهورية الصومال محمد حبيب إن بدن بالله ديرالي وحقبت كيسي ورمر كيسي إنتي لقي لي من لقبا مدحدي هلك نيجو الرئيسي أي كي يدهين محمد حبيب وحنا لنا هاي ما تاهين كمانا تاهين حفلة الوحوين ماتا حفلتي لو قصوا دويني سيدفعات كانوا شاكي هرا دوغا من نقطي دلك يسوير مقالة ستوكم مركا حسبيكو كل بيه وكولي محمد حبيب كلي والله تبي وانا لغو باهنا هرمرك قبلكن يا علامته هرمرك يا horseedka ka hayna way soo muuqdaan madaxaan waan ku soo dhaweynayna waxaan ku leenahay soo dhaw gacmo furan ku soo dhaw xisbiga kulmiyana hal mid baa maanta loo gudbo waxa la gelayaa qaadashadii kaarkani muhiimadda iyo macnaha uu ku fadhiyo waxa weeye gobolku wuxuu leeyahay مرشح كوادي قبل كليلي وموسى بيحي عبدي وقبل كان أصلحان كسوشيدا كان سنادي وحي نغبان إنه دماغا كاركا قادنو وإنه كلمية وعضينو كاركا قادشي سوحا قلو مهين متاي xildhibaanada golaha wakiilada hadhow geli doona kolbani banigu ka kaarka badan yahay ay ku cod badnaan doona hadii aad kaarka qaado weydaan xildhibaanada laba bay ka geli doona reer Gabilow hadaa qaataana 10 xildhibaan baad yeelan doontaa sidaas daraadeed waxa laga maarmaana in ummadda la wacyi geliyo muhiimadda iyo mudnaanta ay qaadashada kaarku ay leedahay tartan baa lagu jira tartanku uu furan yahay tartanku waa xalaal waa tartan turxaan lahayn waa tartan aan ugu helinayno xisbigeena waa tartan aan ugu helinayno murashaxeena haddii aanu maanta doorano kulmiye waxa badbaadaysa taariikhda dahabiga ah ee madaxweynaheena qiimaha badan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaynu ugu helinayna taariikhdiisii mugaweyn leh dahabiga taariikhda waxa kaliya oo sii wadi kara oo halganka iyo horumarka sii wadi kara waxa weeyaan gudoomiyaha xisbiga isla markaana murashaxa Muuse Bixi Cabdi saasaradeed مسؤولية قف قصة وقانجارة واستوان قليل صارني وحوي إن كارك قاتم ريك بلو ديار موتين الكارك قاتم ديار موتين وإنه يسلاس يكرمية وإنه غورينو قبل كني وحويا عند كلا وقام بنانا قبل لمدة عدة هورت أجنا ما يقيم مدحي قول شيء يسوي شيئين حسب معارض كا أيه هورت أجن إنه قبل كجيبلي قبل لمدة يسوي نقطة سأسترد حسب قاسي أديه قبل لمدة دي بهورت أجن هاي موقع ما إن عقدي نسيسان هذه أقول ما سنتي وبالله التوفيق هو سهري وحكى لما كرفوه هو المؤمن حسيت الله يا هذا شيء أشوف تبع شرط يا خبر بلاد المجاج حسيت ناسي وحكوا يا هالناس واحد ترى كان ناس وين هو كل مية ما كان كي يريكم بحكانا ومحيا ويعد بيتي ودني بيو أنا ما حسي بيتي ديو مرة ليك أما قاطع أخطر كانوا برواقانوا يبرمجوا وحنا بالله حسيت ناسي ولا هاي كنسية أنا وطني واحد ترى
gabayna kulmiya xabada yarina waa u cido akhtar bay labada calanbalay ka kalena waa asyo waxa asloodu way ka xanaaqday inaguna loo leeyo leeynaayro loo leeydu hadday marada casara ka dibiga isbayn bay noogu horeeyo wala xanaaqaya koona macaanka aslooga gabil caanka aslooga soo maaha anideen waxa weeye kulmiya akhtarka iyo maxay sida qastatay halkaasaynu nahay waxaan halkan isku nimid maanta wax badan baa laga dhawaajiyey maxamed xabiib qiimaha uu ku leeyahay gobolka milyan baa idin sheegay mid waan isla wada ognahay aniga sakari ahaan 2007 ayaa waxa igu yiri maxamed sakariyow caqlan ku tuhmayaa kartiban ku tuhmayaa waa inaad u shaqaysaa gobolkaaga ilaa heerka maanta safiirka marayo jihayahaygu amba diiradeedu wax weyn maxamed runtiina ummadii ma midowdo ma noqoto amba gobol ma midoobo amba degaan ma midoobo haddii aanay mid ahayn run ahaantii annagu haddaan nahay qurba joogga gabilay oo maxamed noogu ahaa garwadeen waxaan nahay dad mid ah midda keliya naga dhaxaysana waxa weeyaan gobolka gabiley ma ka timaadeen waxaan filayaa inaad waxyaalihii hore dhacay aad la socoteen haddaan qurba joogga nahayna ay ugu dambeeyeen konteynaradii dawooyinka ee wajaaniye gabiley la keenay tala midaysan ayaan ku keenay qaar kaloo badanna waanu keeni doonaa insha allah waxaan jeclahay fursaddan inaan uga faa'iidaysto Somaliland maanta waxay maraysaa heer dimuqraadiyadeed oo xisbiyo ay jiraan oo wax ilaahay lagu mahadiyo inuu waddankeena ninka amba mas-uulka hoggaanka u qabanaya ku yimaado codka dadka mid yar baa idinku daray marka wadamadaanu joogna madaxweynaha amba xildhibaanka baarlamaanka gobolka uu ka soo baxayo amba gobolka uu degaan ahaan ka soo jeedo kaba campaign gareeyo way waa gobolkiisii waana wax iska caadi oo qofka gobolkiisa inuu ka campaign gareeyo maaha marka waxaan filayaa maanta degaan ahaan amba gobol ahaan oo qof kasta oo reer gabileya ku baraarujinaya qofka amba xildhibaan ha noqdo amba madaxweyne ha noqdo amba gudoomiye baarlamaan ha noqdo hadduu gobolka gabiley ka soo jeedo dee campaign uma baahnaan filayaa in wax la weydiiyo maxaad noo qabanaysaana loogama baahno waba degaankiisii laakiin gobollada galowga maxay la campaign garanayaan mid yaroo kaftana loo odhanayaa wax leeyahay haddii aynu dimuqraadiyaddii wada qaadanay oo xisbiyadu dimuqraadiyaddii wada qaateen dee xisbi walba ha laga helo maha kulmiye oo keliya in halkan looga campaign gareeyo xisbiyada kalena ay xidhaan gobolladooda وانا اتعلم هاي ريك بلايو سويدية سؤاشاسي هدي قبلنا هو ذفريهين سومالي لا إسبيادا وريلو هو ذسميهين لأنه قلنا رناقوا قوادين الحكم حاليا نتي السوء تاجي واحد نروح إسبيا كربيا معه أي لا لكن ما أنا رجل لاي مكان تيجي أنت قوتي ذا إذا كم ركتين مركز تسوى فريشو إذا تعلم ريك بلايهان واحد كستو ديمقراطية دي هرمت السومالي لن كشرنا ومهم قبل كنا وحال كريس بكرا وقبل لبني سكويني كرا وحدكي سكويني كرا ووحول أو كلمة سكويني كرا وإذا كون من المجورة من المشي سكول عضان وإذا حدا دمانتي حدا كم دولا هيك بلي هذين نعينا من نقولينه هو عوضة وحن نقولنا هو كان كذلك هي قبل كان هو قبل كي وحصوصالك وقبل كي أقومك وقبل كي soosaarka marka inaga idin loo yeeriyo maahe reer gabileeyo idinku wax u yeeriya idinku hoggaanka noqdo siyaasadda dalka waad arkaysaa mar kasta oo nimaado siyaasiyiintii gobolka oo wada socda waa mid annaga qurba joogayna mid baan nahay idinka reer gabileyna haddaydaan mid noqon annaga waa nagu dhantaan marka waxaan idinku dardaaraynaa inaad midowdaan وسياستنا يفكرنا أدم مدودان. شو محل هاي ما هو إنه فرحت
inaynu soo dhaweyno inankeenii ku sumadaan horumarka siyaasigeenii waxaan leeyahay inaynu soo dhaweyno oo inaga mutaystay sababta ay tahay halkii inoogu soo jiray baynu xasuusanahay innaga oo waqtiyada xataa kala hayn laba xusbi oo waqtigaan meesha wuxuu ahaa xukuumaddii talada waqtigaa haysay oo halkaana mari xajada soo fadhida xabiiba barasaadkii waqtigaaba soo fadhiya xubno gobolooda baa soo fadhiyey laakiin waxaan filayaa xabiib inuu ahaa nin aad iyo aad nooga hawl yar oo aan ahayn qof cusriya qofku waan jecelahay xusbigiisa yaalku joogo inuu daacad u noqdo waxna u qabto waayo qofka halkaa wax ka qabta halku yimaadana wax ka qaban karaa marka taas awgeed waxaan leeyahay horta xabiib nin horumar lu ahaa nin xusbigiisana saacadda u daacad u ahaa waxna ka qabanayay buu ahaa ummaduna marka taa laga yimaado haddii ayna isku duubnaanin ama ayna mas-uuliyiinta saacadda xilalka u haysta hareeraha inay ka taagnaanin horta waxba uma qarsoomaan waxaan xasuusanahay oon odhan karaa halkaa waxay ka dambeeya suldaankiio waa suldaanka gobolka marka la yidhahdo horumarka yaa salaadinta horumarka u qaabisan gobolka waxaan odhan karaa waa raja uqaashii baa fadhido waxaan israadaa malaha caaqilka marka uqaasha la soo qaato iyagoo dhammaantood hareeraha ka wataagnaa oo aan markhaati badan furayo haddana maxamed cabdi qudhuman calaamad gaara u saaraa ayuu anigoo dhammaantood aad u wada xusaya laakiin haddana shay walba oo lagu kala firfircoon yahay waxaan leeyahay Gabiley waa gobol ummad aqoon-yahan ay degan yihiin xaqooga raadsan kara codkoodana bixiya taasoo mid waxaynu u baahannahay xildhibaanadeedii horaa fadhiyo oo aadan maxamed badaalka fadhiyo tiyootaan arkayaayo dee marnaba aan la hilmaami karin waddadan aad u soo wada shaqaynay way ka duwan yihiin dadka soo shaqeynta kale way ka wada duwan yihiin marka kulle waxaan leeyahay haddaynaan hareeraha ka wada taagnaanin horumar ma dhacayo horumarkeena kow waxaa ka ah Gabiley meel codkeega aad u bixisay leeyahay Gabiley u malayn maayo inay ciidamada nagula tartamayso dee waa Gabiley waa kulmiyana waa Gabiley horta inta kale waxay nagu ahay waqtigaada xukuumaddii waqtigaa darada haysaga iyadu inta macaaradku hela ilaa naga heshay dee maantooynu maxaafid nahay oo Gabiley isku tirin maynee horumarka ka dhacay iyo waqtigii sida ahayd waxaynu odhan karnaa faraq aad weyn baa u dhexeeya taana waxaan odhan karaa hadduu maayar wax qabto iyo hadduu barasaar wax qabtaba horta horumarka waxa ku hogaamiya madaxweynihiisa wasiiradiisa mas-uuliyiintiisa oo waxaa la yidhaha awrka hore awrka daba socodkiisu leeyahay wax kasta oo la qabtayba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan baa iskale oo ah madaxweynaha musuqmaasuqa agtiisa laga sameeyey marka horta taa waxaan leeyahay xusbiga kulmiye cidii nagula tartamayso horumar markaynu reer Gabiley soo noqono codkeenu halkuu marayo waynu ogey maanta halkuu yaalana waynu ognahay xisaabtan fara badan oo gobollayna lamida aynaan daynayna laba tartamaan aan loo baahnayn aynaan isrumayn lixda gobol iyo Gabiley baynu nahay innaga iyadaa in cigaal bay noo raaciyey maalintaa gobolnimada la magacaabayay Gabiley ay iman doonto horta ciddii noo dhigtay siiraayoha sababtay tood xasuutiino waxaynu ku qabanaynaa halkii sidii baa talada hayayna oo markii noogu dhawaaqay hasaata waxyaabaha inaga maqan kulley qayb inaga laftigeena inagu maqan tahayo waxyaabo badan oo kaleba aad baynu gobol ahaan uga hadalnaa oo mararka qaarkood aan dalibo ku jirin loo baahnaa in horumarka laga hadlo iyo maxaa kaa maqan maxay naga maqan markaan dhaano arrintaa in gobolkeenna la magacaabo doorta maalintii dad fara badan baa la iska keen raaciyey gobolle aad u yar fara badan baa la iska keen raaciyey laakiin ciddii loo baahnaa inay ka soo maraan dhammaanteenu gacmaha isku wada qabsanna hadday caaqatay hadday suldaan tahay hadday xildhibaan baarlamaan tahay hadday xildhibaan golo degaan tahay wax walba intaynu halkaa dhigno hawa gobolnimadeeni wax badan oo aynu khayraad badan oo aynu leenahay oo haddii xataa gobollada dhammaantood inta saa loo soo dhigo baarlamaanka horta madaxweynaha way dhaafto madaxweynuhu dee baarlamaanka hor dhigay baarlamaankana waxaynu ognahay maanta cidda ka gudoomiyaha ha haato cidda loo baahan yahay markaa waa baarlamaanka gudista cidda loo baahan yahay dabada ka dhexataana xaqiiqiyan horta dee inagaynu ahay maradu madaxweyne looga garan hadda ka baarlamaanka in la baaskareeyo cidda waxa u taallaa baarlamaanka gudista u taallaa cidda looga fadhina maanta horta waa baarlamaanka cidda loo baahan inay dadaasho oo habeen dheer ka seexan weydaana waa inagoo gobolka Gabiley maanta u malayn maayo in muuse shuruud loogu xidhayay Gabiley maanta Gabiley muuse waa ka bilaa shuruud maanta muuse odayta Gabiley loogu sameeyay waxa la yiraahdo waxay kaga xirantahay ma jirto waa bilaa shuruud waa gobolkiisii waa gobolkii kulmiye oo caan ku ahaa marka waxaan dhammaanteeba
dadaal baa laynooga baahan yahay farxad iyo damaashaad maanta noo dhimani ma jiraan waxaan uga mahad celinayaa dadweynaha reer Gabiley ee sharafta leh ee karaamada leh ee xaqsoorka yaqaana ee qof walba wuxuu u qabtay ku qaabila sida maanta ay u soo dhaweeyeen mudane maxamed axmed cabdi xabiib oo ah aabihii horumarka gobolka aabihii waxqabadka gobolka Gabiley aabihii wax wada qabsiga iyo isu tashiga baray gobolka waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin reer Gabiley oo sida fiican ay u soo dhaweysteen gobolka cagaaran haddii meel waliba waxay leedahay guddiga ka koobaad oo talada laga bilaabo maalinta annagoon xil haynin ayaanu maxamed axmed cabdi xabiib shaqada wada bilownay marka laga hadlayo maayirkaa sheegay mas-uuliyiintii ka dambaysay baa sheegay anigu ku fogaan maayo 2 jeer tiraba 3 jeer marna maayir baan ahaa marna wasiir baan ayaa waxaan ugu tegay dalka Suudaan waxaan ka codsaday inuu si degdeg ah u soo noqdo oo ummaddu ay tabayso oo gobolka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba saaxadii siyaasiga ahayd oo dib ugu soo noqdo deedna 2 jeerba wuxuu igu yidhi waan yar nasanayaa ma se fogiyo waan soo socdaa waxa ilaahay mahadiyey maanta haddii uu xabiib soo noqday runtii intayada kuraasta ku fadhida waxaanu aaminsanahay anigu shakhsiyan iyo inta kale la midkayba haddaan wax la isku qirin haddaan la isku ixtiraamin bulshadu horumar ma gaadho intayadaba inuu naga mudan yahay baan aaminsanahay horumar حبيبي وش صوت وشين ترى بعدين تجيسه بيش يكتب هو بس الدواء أكل بيه ما كلمة حلقة هاي تكتبه قوم تعي فريس التبع وبس الدواء إنه حلنا أديك نجا ورأي هو اللي وقع مفرما بس الدواء ولي هو كل شغالين قلب كلام هذا هو هدي له تعطي مشاريع قبلي بيوقف فلان أو قصبنا oo labada gacmood baa ku weydhanayso way bilaabeen isaga iyo aadam maxamed bada waqtiga iyo saddex jigeedo ma xigeenahay haday tahay jaamacad shirkii koowaad ee lagu qabtay gurigii Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Faarax Sugaan gurigiisa shirka lagu qabtay baras xabiib iyo magan baa waxay soo jeediyeen inay jaamacad Timacada University ay Gabiley ka furayaan rag fara badan oo maanta jooga waxay ilaahay jaamacadu miyaan ahayn tii fawiyada lahayd tii waaweynay tii caanka way la yaabay indha aday iyo calool aday iyo isku kalsooni iyo daacadnimo ku bilaabay ilaahay maanta intaas ku facdo bay kaga baxay oo ka qalin jabiyay marka intii intaa ka dambaysay hadday tahay aadam maxamed baday baayiradiisa ka horreeyay soo wad ilaa abi soo gaarsiiyay maanta qof waliba qoriisu dhiibay ahayd wax ku dari waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow gacmo furmaan ku soo dhaweynaa mashaariicda Gabiley ka heli galay kuwa ugu waaweyn magacaaga ku qoran haddaad ogtiin sarimada dhexe inaad aragtid mooyaane ka yimaada goweysa iyo ka goorle ka yimaada iyo inteeda magaalada ka adeegata sarimada subax walba aynu ka adeegnay weyn marketka weyn townka magaalada ku yaala xabiib baa ku qoran inaad aragtid oo gaaban halkeed gaaban isku duubni iyo wada jir iyo midnimo iyo ku gaarnaa yoolka aynu inaynu musharaxnimada ku guuleysano xisbiga kulmiye maanta waxaan idinku bishaareynayaa gobolka Gabiley min gobol degmo ilaa heer qaran oo isku duubay waxaanu samaynay guddi ka kooban 17 xubnood oo deegaanka Gabiley ka soo wada jeeda oo ka shaqeeya arrimaha diiwaangelinta iyo kaarbixinta ilaa heer doorasho iyagoo kaashanaya dadweynaha reer Gabiley xildhibaanada golaha deegaanka 17 xubnood ee xisbiga kulmiye gobolka u matala iyo waxgaradka Gabiley oo dhan waxaan idin sheegaynaa markaa midnimo iyo wada jir baynu kaga baxaynaa khilaaf iyo iska horimaadna uma baahan muddada doorashada ka harsan iyo inta ka dambaysaba isku duubni iyo wada jir baa lagu shaqeynaya maaliidka heer qaran حكومته أنك أو مثلي أنا كمان توزير كي كوبا خلاف السياسي عام أو كلي
waxaan ku soo gabagabaynaya haddaad maqasheen muxuu ahaa horumarka gobolku gaadhay ee ballaadhadeeda baaxadana muddooyinka u dambaysana waanu soo dhaweynay maayarka iyo badha saabkana waxaanu kula shaqaynaynaa horumarka ballaadhan ay gacanta ku hayaan cidna ka ogolaan mayno khilaaf dhex yaalla Gabiley dhexdiisa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin isku keenay wadasha badan ee bilicdasan aynu maanta aynu ku dhannahay intii hadoorka u ahayd hay'adaha noqon lahayd dhalinyaro iyo odayaal iyo madax iyo arrimaha bulshada iyo madaxda qaranka cid kastaba leh ilaah baan u mahadnaqaynaa labaadka waxaan halkan uga salaan uga dirayaa kaliya laaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa saddexda golo qaran waxaan iga dirayaa salaan kaliya laaba waxaan si gaar ah salaan ugu dirayaa musharaxa madaxweynaha mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha kulmiye intaa kadib waxaan halkan salaan qaaliya oo aan la soo koobi karin oo aan isleeyahay yani ma qiimeyn karo salaantaasi halka ka soo gado waxaan soo diray dadweynaha sharafta leh ee gobolka Gabiley guud ahaan ha noqoto cuqaal ha noqoto maamulka ha noqoto haweenka ha noqoto dhalinyarada waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ay soo dhaweyseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa badhasaabka gobolka kusimaha cali saaxiibkay iyo maayir maxamed amiin oo iyo golihiisa deegaanka aad baan ugu mahadnaqayaa weliba waxaan leeyahay waxaad qabateen ee horumarada wadaan iyo sida aad u shaqaynaysaanba waan garab taaganahay wax markaa intaa ka baxo waxaan jecelahay inaan gudagalo soo dhaweynta aad soo dhaweysay laga ka gudbo waxaan isleeyahay halkan waa laga hadlay saaxiibaday badan baa ka hadlay waxaa ka hadlay maayiradii aan wada shaqeynay aadan maxmed bede saaxiibkay ku-xigeenkii badhasaabkii gobolka waxaa ka hadlay wasiir Shucayb waxaa ka hadlay cid kasta oo halkan soo taagtay ha noqoto safiirkii ha noqoto gudoomiyihii Suudaan ha noqoto afayeenka madaxweynaha laga wada hadlay wixii wax qabad laga hadlay kuma noqonayo laakiin waxaan leeyahay anigu guddoonkan baan lahaayay dhammaan reer Gabiley baa guusha wadada keliyay balihi haddaan cid gaar u xuso oo aan isleeyahay ciddaasaa malaha kuugu mudan inaad calaamadiso oo aan isleeyahay naf iyo maalba u horay gobolka waa doctor professor magan ayaa si gaar ah marka intaa ka gudbo waxaan u maleynayaa dee anaa maanta miiska saaranoo waxaa laga yaabaa inaad wax badan iga sugaysaan horta marka hore waxaad isweydiinaysaan war odaygii waa kii daalan gobolka ka tegay qurbaha joogay mudduu malaha boos ku jiray muxuu ku maqnaa horta marka hore anugu waxaan u maqnaa dalka iyo dadka iyo gobolka Gabiley waxaana la shaqaynayay وانا ده حسب مو بعرف لو واقعين الدولة ده لو لا شقيني قبل كون مركز لو كشقيني وحي مثلا هالنقطة يعني اعتراف هالنقطة وحكمة هالنقطة وده بدأ ودكتي نود شارك بك كتير كان والودني مصر في على شقي على جرام شقي والودني وحرام إلهي مهدية إن ضل كمان تاين ورجع جوعي وسكت بيهين أو قبل intii reer gobolka Gabiley inaan afsanayn ayna waliba isku duuban Soomaaliyaanimo idinkana waxaan ka rajaynaynaa dardaaranka halkan laga soo jeediyay inaad qaadataan isku duubnaataan safiirku gaar ahaan soo jeediyay way jirtay inuu saaxiibkay Shucayb laba noo yimid oo igu kaalay de waa soo socdaa baan ku yiri goortii waxaan aaminsanahay madaxda qaranka halka joogta Shucayb afayeenka madaxweynaha agas wasiirkeenii hore oo agteeda taagan agaasimaha madaxtooyada Khadra Xaajiye kusimaha gobolka saaxiibka Cali Cadde maayirka dhammaantood waa dad dhalinyaro ama Cali Casa weyn
waxaan u arkaa waxalgowlihii iyo waxqabadkii doorka dhalinyarada iyaga iyo matala iyagaan la shaqaynaynaa waanu garab taaganahay markaan intaa ka gudbo waxaan gudageli doonaa maxaa igu dhaliyey inaan xisbiga xukuumadda ee waddani baan oo la shaqeynay maxaan inaan kusoo biiro kow horta xaq baan u leeyahay muwaadin baan oo xisbigaan doonaan geli karaa kulmiyaan doontay talabaad waxbaad isweydiinaysaa dee qofka soo bini-aadan ama meel gelaya su-aalo isweydiiyaa markaa su-aalaha jawaab marka loo qodo hesho baad markaa go-aanka qaadanaysaa horta anu waxaan ka mid ahaa dadkii farantiiriska ahaa ee usoo halgamay dhalinyarta somaliland ee soo aasaasay xisbiyadii xisbiga ugu horreeyey ee soonyo iyo afayoogo una halgamayey iyo soonyaba dadkii u halgamayey dhalinyartu waxqabadaan baan ku jiray waxaan markaa dareemayey in boqolkiiba 70 ay dhalinyaro yihiin waddanka xisbiga kulmiye waxyaabaha ku raacay kow ka mid ah waxaa ka mid ah wuxuu ooda ka rogay siyaasadii ay dibadjooga ka ahaayeen dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliya maanta waxaad ogtihiin oo markhaati idin ah maxamed amiin wuxuu ahaa arday markii aan anu gobolka yimi maanta waa maayirka waxaa laga yaabaa dhalinyar fara badan oo 40 kaba gaadheen maanta wasiireyihiin ay mas-uuliyiin yihiin awal malaha dowladdii hore ee aan ka tirsanaa ee udub anaa ugu yaraa waan maranaya wax walba dhalinyaro ah ana dhiwi ma hadda waxaan ku bishaareynayaa bahweynta kulmiye iyo dadka taageere ka soo kulmiye bini'aadamku wax ku kala badiyaan waxay keensadaan haddii aad inaad wax guri dhista doonayso ama wax qabsato waa inad lacag keensato kaydka ugu weynaya maanta xisbiga kulmiye haysta waa dhalinyarta ayuu abaan ku leeyahay iyaga u gudaya dumarka laftirkooda maanta intay baas ku fadhiyaan dee shalay kumay fadhiyeen ha noqoto agaasimo guud ha noqoto oo maanta khadaraanka ka joogto wasiirro tiro badan bay leeyihiin markaa waxaan leeyahay commissionka ha noqoto xildhibaanna ha noqoto waxaan leeyahay horta abaal badan buu ku leeyahay mujtamaca aan hore ugu jiri jirin saaxadda siyaasadda halkaas buu horta ka helayaa inta ugu badan waxa kaloo isweydiin leh muxuu soo kordhiyey kulmiye waxaynu ognahay xagga marka laga eego adeega aasaasiga ee bulshada waxaan aaminsanahay waddada isku xidha ceerigaabo iyo hargeysa isku xidha maanta laga yaabo inay boqolkiiba 65 ama boqolkiiba 5 dhisan tahay dowladdii qadiimiga ahayd ee geeska afrika ugu xoog weyneyd ee dowlad jirka waa libaaxa afrika ee geeska afrika ayaa u baydhi weynay maantana waxa u baydhay xukuumaddan hadda joogta uu garwadan ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxa kaloo ka mid ah waxyaabahaan isleeyahay waa la taaban karaa ama ha noqoto mucaarid ama ha noqoto muxaafid ee maragmadontada ah maanta dadkeedu waa dad danyara inta wax haysataa way yar tahay wuxuu free uga dhigay inay bilaash kutaan waxbarashadii marka hore lacag tahay ee asaasiga ah waxaa kaloo ka mida waxyaaba isleeyahay way mudan tahay in la xasuusto 3 ama 4 ciidan qaran ee dalka ka jira ama maanta waxay ku tulan yihiin darajadoodii maanta waxaad arkaysaa يعني كاشان لسنة سريع قلتو سريع كاس إلا يوحنا كسائلف إلا دبله وحويا واحد نور ما يستخدم مركب وما يستخدم سمات يدور الدماغ يقرنه وأنا ماله على قد قياسه ذيك ده مطلع ولا بيسوي الله ثانا واحد لا يهي واحد طلبه وقاضي واحد كلام كم ده وحيابا عن سلاي هاي والمدير شو سكرة ولا حاسس سكرة هو مضاد واحد كم ده حاجة أهمية الدبادة ما كان يحتاج dalkeedu maanta wax اعتراف تمويه لكن من يقول سمريا وحكمنا maanta
waxa safaarado rasmi ah inooga furay dalka Sweden oo aan uga mahadnaqay dalka jooga Sekretariga Xasan Wacays oo aan isleeyahay waa nin halyeeya oo door mudan ka qaatay waxa ku xigtay safaaradii Mareykanka ta Ingiriiska way furan tahay Djibouti iyo Ethiopia safaarada rasmi ah oo furan Imaaraadka iyo Imaaraadka marka waxaan isleeyahay marka maadaama ay furmeen oo maanta meelaha ugu ay safarada ku yeelaan safarada ka bilaabeenna اعترافك iyo tacabkana barbajoog iyo barbajoog la sakaashaday wax micna ama sameeyay Soomaalidu way iga doontaa taas oo lagu guuleysan doono waxa kale oo kamid ah waxyaabaha aan calaamadinayo xagga amniga waxay ognahay in xukuumadda ay u baayday inay heshiis wanaagsan oo ay la gasho Khartoum oo ah diwaan naga maqnay oo maanta dawladda maanta ay galbeed iyo bariba dhamaystirtayna waa waxyaabaha xasuustay isleeyahay way ku mudan yihiin baa ka mid ah waxa kaloo iyadana waxa kaloo mudan xagga caalamiga waxay nahay daliyan oo dadkiisu ayna badnayn khayraad badan laakiin waxa loo baahan yahay khayraadka dadka looga faa'iideeyo maanta waxay heshiis la galay oo dad heshiis la gashay hay'ada caalamiga oo hay'ada dhiidu waa kamid tahay iyo kuwa kale way kamid tahay bulshada sawirka waxaan aaminsanahay marka hawlahaas hirgalaan in dhalinyarteeni qurbaha kusoo cararaysa badda waxa meeyaan badda ku dhimanaysay inuu jaanis shaqo usoo banaanaan doono taana waan aaminsanahay waxayna mid ka mid tahay tallaabooyinka ay xukuumaddani qaaday iyo xisbiga qurbiya horta waxaan maanta jeclaa inaan dad dheer oo inta ka dhigay jeediyo dhigta waxa la ilaha waa salaadii bay taagan tahay waa waqti inaas ka taagnaa waxaan idinku bishaareynaya xisbiga qurbiya يبهوي تكمية وبردين كي ما أنت مدحونا كي هي سينايو يوم الشرحة مدحونا هاي مسبح عبدي إن البناك يعلن أن الله يقول لك الكريم وحدي أيس مضوا قبتها مضورنا يوم وحنقول بهاي هاي إن الدم يسترو وحما تلقبتها لو ممكن الدم يسترو أي لو بهاي هاي وحنا مركض يكسوك بالجبينية أريبو شخصي أهان وحق وعصدين لا شيء يحسب القربية يحكم مضى يحيي كان مركز وحنا يفوق لنا هذه الدولات يجي بلادنا هاي عد كرسي هو قدر أو نبى مرقو فديا أنت هالرأي أنت هاجن هالنقطة ماي هالنقطة فرنسا هالنقطة أفريقيا كنا بدحونا هالنقطة مسيرة كنا قبلها إلى لا شيء يوم أنا ولا شيء لنا إن قامها نستفسده waxaan in yar noqonaya amaantii badani leeysiina waa idinka guddoomay laakiin ma wadi leeyay idinka ale waxaan leeyahay marka Soomaaliya ka noqoto madaxweynaha soo noqdo isku xubnaha ha guuleysto dadweynaha reer Galbeed ha guuleystaan oo ilaahay baa salaam maxamed axmed aw cabdi xabiib waxa uu ahaa barasaabkii ugu horeeyay ee loo soo magacaabo barasaabnimada gobolka Gabiley bartamihii sanadkii 2007 xilligii xukuumadii Daahir Yaale Kaahin xilligaas oo uu ahaa barasaabkii loogu wanqalay gobolka Gabiley muddadii uu joogay waxa ka hirgalay gobolka Gabiley jaamacadda Gabiley mashruuca biyaha Botoreed ee Gabiley iyo waliba cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case